السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada warkeena maantay waa maalinimo jimcaha kooda bisha luuliyo 2022 kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Barre gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane Aadan Madoobe ayaa xalay soo agaasimay xaflad heer sare oo loogu dabaaldegayay maalinta kowda luuliyo xaflad si heer sare loo agaasumay ka soo qayb galeen madaxda dalka ugu sareeya ayaa waxa mikrofoonka qabsaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaas uu ku xusay qiimaha ay leedahay maalintani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhawaajiyay in maqnaanshaha gobolada waqooyi ee Soomaaliland ay kurba ku hayso xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay haddii la helo Soomaali heshiis oo israacda gobol ilaa magaalo inay noqon karto Soomaaliya mid cagaheeda ku istaagto lana tartanto wadannada kale Afrika sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa afka ku adkeeyay in xukuumaddiisu xataa haddii ay ku noqoto inay xilka uga tanaasuso madaxda Soomaaliland ay sameyn doonto madaxweynaha ayaa qiray in imaanshaha Soomaaliland ay tahay xubin muhiim ah loona baahan yahay inay ka mid noqoto xubnaha firfircoon ee dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan dib loo bilaabi doono wadahadaladii ka dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya nasiib darray noqotay maanta oo 62 sano laga joogo in dowladnimadanadii ay marxalad adag ay sii gasho gumaysi kale oo qarsoon aan galno oo meelo kalena looga soo maleegay niman sidoo kale maamulka koonfur galbeed ayaa u dabaaldegay kooda luuliyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa ka dhawaajiyay in Soomaaliya wali ku jirto gumaysi madaxweynaha ayaa weerar ba'an ku qaaday xukuumadda Xasan Sheekh sheegana in siyaasiyiinta ugu badan ee hadda xilka haysa xukuumadda Xasan Sheekh badankood ay wataan dowlado kale Laftagareen ayaa u muuqday mid aan ka soo kabsan wali jabki gaaray xukuumaddii nabad iyo nolol saaxiibkiisii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Laftagareen ayaa la sida la aaminsan yahay ula jeeda dadkaasi dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Kenya Cabdicasiis Laftagareen ayaa iclaamiyay in Soomaaliya ku jirto gumaysiga ugu baahnaa ee abid soo mara sida uu sheegay Laftagareen ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan wali xor ahayn ayna u baahan yihiin inay midoobaan kana hortagaan wixii gumaysiga uga imaanaya dibadda Laftagareen ayaa sheegay in gumaystayaashii hore ay ku jireen waddanka gudihiisa haatan gumaystayaashu ay naga maamulayaan maskaxda ayna isticmaalayaan siyaasiyiinteena haatan dhankaas iyo Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale u dabaaldegay xafladii kowda luuliyo oo xalay saqdi dhexe ka dhacday caasimadda Puntland ee Garowe madaxweyne Dani ayaa sheegay inay Puntland tahay hooyada federaalka aysan ka maarmin Soomaaliya oo dhan Dani ayaa sheegay in Puntland ay tahay lafdhabar ama udub isku haya Soomaaliya oo dhan Dani ayaa sheegay in Puntland ay qabto walaac ka dhan ah xukuumadda hadda jirto aysa tahay in Puntland loo garaabo ayuu halkaasi ka dhawaajiyay Dani ayaa sidoo kale sheegay inay si degdeg ah uga codsanayaan xukuumadda Xasan Sheekh in Puntland lagu soo daro wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya sidoo kale Dani ayaa sheegay inuu ka xun yahay in guddiga dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya aan lagu soo darin Puntland Dani ayaa xukuumadda cusub uga digay inay baalmarto dastuurka ayna ku dhaqaaqdo falal galin kara khalkhal amniga dalka Dani ayaa sheegay in Puntland ay ka tashan karto aayaheeda xilli kasta ayna diyaar u tahay mar kasta inay Soomaali mideyso ama ay danaheeda raacato adawadayaal waa naga intaas warkeennii maanta fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar mahadsanidin